Marka maxaa la filan karaa haddii la soo saaro shidaalkaas? Run ahaantii shidaalkaas haddii la soo saaro waxaa la filan karaa kobac dhaqaale oo weyn. Sidoo kaleeto waxaa meeshaas dhalinyarada Soomaaliyeed oo u soo bixi doono shaqo abuur noocyadiisa kala duwan, horumar xagga kaabayaasha dhaqaalaha, in wadooyinkii dalka u lahaa in si fiican loo dhiso, kaabayaasha dekedda in la horumariyo oo la weyneeyo. Soomaaliya badanaa shidaalka waa loo keeni jiray iyadoo loogu keenayo maraakiib, kadibna waxaa lagu shubi jiray keedka shidaalka. Bartaas waxaa kasoo qaadayo ama kasoo qaadi jiray booyado. Booyadahaas waxay keeni jireen kaalimaha shidaalka. Sidaasna waxaa kusii kala iibsan jiray darawallada gaadiidka noocyadooda kala duwan weliba ay ugu caansan yihiin mooto bajaajleyda, kuwa biyeelka isticmaalo, kuwa TM-leyda, baabuurta guud ahaan qaybahooda kala duwan. Laakiin dhawaan waxaa la filayaa Soomaaliya in ayada shidaal loo soo doonto. Ebil haddii ayada wadamo kale u dooni jirtay oo loo keeni jiray, maanta ayadaa loo soo doonan doonaa. aad iyo aad assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Dhammaan asxaabta ku xiran janaalkeena Somgold Office waa idin islaamay meel walbo adduunka joogtaana waxaa idin leeyahay maalin wanaagsan. Intaas kadib maanta waxaa ka hadli doonaa barnaamijka shidaalka, kaasoo dhawaan la qorsheynayo in laga soo saari doono dalkeena Soomaaliya, weliba gaar ahaan xeeb ka mid ah xeebaha maamul goboleedka Galmudug. Sidaas darteed haddii aad janaalka cusub tahay waxaa ku leeyahay fadlan nagu soo biir oo janaalka subscribe garee, sidoo kaleetana muuqaalkan noo like garee si uu gaaro meel fog. Intaas kadib shidaalka waxa uu ka mid yahay kheyraadka oo dabiiciga ah misena aan nooleen. Kheyraadka marka laga hadlayo sidoo waxaa loo qeybiyaa laba nooc oo kheyraad ah, waxaana loo kala yaqaanaa kheyraadka nool iyo kheyraadka aan nooleen. Tusaale haddii aad soo qaato kheyraadka nool waxaa la dhihi karaa dhirta, koos dhirta way nooshahay. Sidoo kaleeto xayawaanaadka haddii ahaa lahaayeen kuwa ku nool beriga ama haddii la dhihi lahaa kuwa ku nool badda. Sidoo kaleeto kheyraadka aan nooleen waxaa la dhihi karaa shidaalka oo kale, betroolka, gaaska, gemstonka, dahabka iyo wixii kale markaasi oo ayagana kheyraad la dhihi karo. Marka maadaama maanta ka hadlayno barnaamijka shidaalka, shidaalka waa kheyraad dabiiciga ah oo laga helo dhulka hoostiisa, lagama helo meel kaleeto. Shidaal markaa ka hadlayo sidoo kaleeto saliidda ka mid ah waxaa laga helaa dhulka hoostiisa, dhulka la qodaa iyadoo loo marayo hab cilmiyeysan. Marka dhawaan waxaa la filayaa Soomaaliya inay ka mid noqon doonto wadamada leh shidaalka sida Sacuudi Carabiya iyo dalka Norway. Laakiin marka la dhaho qaaradda Afrika, maadaama Soomaaliya ay ku taalo qaaradda Afrika, waxaa la dhihi doonaa wadanka ugu horeeyo ama kaalinta koowaad ku jiro marka loo fiiriyo xagga shidaal badnida. Waxaa la rumaysan yahay in shidaal badan laga heli karo xeebaha dhaadheer ee Soomaaliya, gaar ahaan badda ku teedsan badweynta Hindiya ama Indian Ocean. Waxaa jirto shirkado badan oo sameeyay exploration ama baaritaan oo ilaa hadda baaritaankaas ku wado xeebaha Soomaaliya qaar ka mid ah si loo ogaado shidaalkaas meesha ku jiro hadba inta uu leeyahay, haddii uu yar yahay, haddii uu weyn yahay in la ogaado. Marka maxaa la filan karaa haddii la soo saaro shidaalkaas? Run ahaantii shidaalkaas haddii la soo saaro waxaa la filan karaa kobac dhaqaale oo weyn. Sidoo kaleeto waxaa meeshaas dhalinyarada Soomaaliyeed oo u soo bixi doono shaqo abuur noocyadiisa kala duwan, horumar xagga kaabayaasha dhaqaalaha, in wadooyinkii dalka u lahaa in si fiican loo dhiso, kaabayaasha dekedda in la horumariyo oo la weyneeyo. Soomaaliya badanaa shidaalka waa loo keeni jiray iyadoo loogu keenayo maraakiib, kadibna waxaa lagu shubi jiray keedka shidaalka. Bartaas waxaa kasoo qaadayo ama kasoo qaadi jiray booyado. Booyadahaas waxay keeni jireen kaalimaha shidaalka. Sidaasna waxaa kusii kala iibsan jiray darawallada gaadiidka noocyadooda kala duwan weliba ay ugu caansan yihiin mooto bajaajleyda, kuwa biyeelka isticmaalo, kuwa TM-leyda, baabuurta guud ahaan qaybahooda kala duwan. Laakiin dhawaan waxaa la filayaa Soomaaliya in ayada shidaal loo soo doonto. Ebil haddii ayada wadamo kale u dooni jirtay oo loo keeni jiray, maanta ayadaa loo soo doonan doonaa, kadibna wadamo kale saas loo geeyi doonaa.
marka sidoo kale waxaa qayb ka ah iskuulaadka most hadeertaan waa lacagaa lagu dhigtaa waxaa la rajeynayaa shidaalka haddii Soomaaliya si rasmi leh loogu qodo ama loogu soo saaro iskuulaadka most inay noqon doonaan free qof alaala qofkii wax baranayo si free inuu ku baran doono sidoo kaleeto jaamacadaha hadda way jiraan iskuulo oo free ah jaamacado free ah isbitaallo free ah way jiraan sida jaamacadda ummadda oo kale hadeertaan waa free waa qaybta waxbarashada iskuul Maxamuud Xarbi oo kale qaybta agoonta waa free iskuul jaamacad isbitaaladana waxaad soo qaadan karnaa Martini oo kale waa free laakiin shidaalka hadda haddii si rasmi leh loo soo saaro waxaa rajeynayaa inay soo bixi doonaan isbitaallo badan oo free ah sidoo kaleeto jaamacado badan oo free ah iskuulo badan oo free ah isbitaallada xitaa hadda waxaa ka tagay isbitaal Banaadir oo kale waa free marka waxaasoo horumar ah waa laga filanaa laakiin weli waxaa sii jiri doono ama jiri karo caqabado yaryar oo la xiriiro barnaamijkan soo saarista shidaalka iyo xitaa markii lasoo saaro qaabka loo maamuli lahaa haddii si qaldan loo maamulo oo meesha ay soo galaan waxyaabo corruption ah oo reer hebel iyo waxyaabo kaleeto si hoosaad ah lagu sameeyo waxaa ka imaan doonto khasaare badan dhibaato in meeshii balaas la filinayo minus ay ka timaado sida wadamada qaar wadan hadeertaan waxaa jiro shidaalka loo soo saaray laakiin ilaa hadeertaan caqabado badan ku jiro wuxuu ka mid yahay wadamada qaaradda Afrika waxaa rajeynaa wadankuu yahay inaad ogtihiin ama aad ogaan kartaan qof alaala qofka yaqaano dhanka commentigan oo soo qoro haddii aad aqooninna waxaa idin soo dhigi doonaa qaybta bostiska marka caqabadaha jiri karo waxaa qayb ka ah horta hore shidaalka keligiis ma ahan fursad waa mas'uuliyad weyn waxaana loo baahan yahay in loo maareeyo si wanaagsan in loo maamulo si cadaalad leh iyo in la ilaaliyo deegaanka haddo deegaanka markaas u dhow in si fiican loo ilaaliyo caqabadaha waxaa qayb ka ah haddana sidoo kaleeto haddo wadanka wuxuu leeyahay maamul iyo madaxda markaas dowladda u badan in xaggooda uusan u badnaanin waxaan waa hanti shacabka dhan ka dhexeyso ama qof walba oo Soomaali ah uu leeyahay marka waxaa loo baahan yahay in si cadaalad leh loo maamulo in laga fogaado musuqmaasuqa ama corruptionka shidaalkan in la soo saaro faa'iidooyinka ku jira waxaa qayb ka ah sabab ogsoonnahay wadanku wuxuu leeyahay ciidan waa magac guud ama magac guud waxaa dhihi karnaa ciidamada qalabka sida waxaa la isku yiraahdaa afarta ciidan ay ugu horeeyaan booliska asluubta nabad sugidda iyo militariga mararka qaar waxaa lagu daraa ciidanka cirka iyo ciidanka badda 6 laakiin mostly waxaa la sheegaa 4 sabab ogsoonnahay afarta hadda la sheego badanaa waxay isticmaalaan gaadiid noocyadiisa kala duwan cabdibilayaasha taawga taangiga uraalka ama beebaha baabuurtaas oo dhan waxay ku shaqeeyaan shidaalkaas waa shidaal la soo iibiyey ama wadamo kale laga keenay sabab ogsoonnahay laakiin askartaas shidaalka loogama qaado wax oo qarashaad ah si caadi ah loogu shubaa mararka qaar waxaa aragnay ama aad aragteenbo facebookyada ama tiktokyada in lasoo dhigo baabuur ay leeyihiin qaar ka mid ah ciidamada qalabka sida shidaalka markay qaataan si hoosaad in meel lagu leexiyo shidaalka laga shubo oo si kaleeto haddana loo sii gato corruptionkaas oo kaleeto wuu iska jiri jiray waa aragnay laakiin muusan badnayn sidoo kaleeto waxaa qayb ka ahaa shidaalka markii la yareeyo kale baabuurta hadba darawalada markaas ku qoran baabuurku waxa uu leeyahay qaybta dashboardka meel shidaalka hadduu inta uu marayo kuu sheegayso haddii full uu yahay haddii dhex uu marayo haddii inta uu yahay ay ku kala qoran tahay E iyo F ama A iyo F oo kala qoran qaarkooda saacadaas uma shaqeynayaan qaarna u shaqeynayaan mararka qaar waxaa dhacday ama dhaco ciidanka ayagoo u sii socdo goobo markaas loo diray ama gurmad ha ugu tagaan ama indhayn ama burburin fariisimo ayagoo u socdo kale in shidaalka dhexe oogo sidaasna cilad ay ku qabsato mararka qaar bay dhacday laakiin shidaalkan hadda haddii lasoo saaro
ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan afarta ciidan waxaa waa iyadana faa'iido ugu jirto keliya shacabka keliis faa'iido uma jirto sidoo kaleeto dowladda baabuurta dowladda kuwa wasaaradaha kuwa kale hay-adaha sida hay-adda CID oo booliska oo hoos tagto hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda oo kale waa badan yihiin waxaasoo dhan waxaa ugu jiraan faa'iido marka sidaas darteed waa in laga fogaadaa musuqmaasuq oo dhan wax alaala wixii corruption la yiraahdo in xag la iska dhigo waxaa loo baahan yahay in waddanka si cadaalad leh loo maamulo sinaana loo baahan yahay wadajira loo baahan yahay waxaa waaye gacmo wadajira wax ku gooyaan sidoo kaleeto dadka tasho waayo waa loo taliyaa marka Soomaaliya haddii anaga aad tasho weyno waana loo talin doonaa haatan waxaa joognaa qaybaha ugu dambeeyay ee barnaamijka sidaas darteed mustaqbalka shidaalka Soomaaliya wuxuu ku xiran yahay sida aan anaga u maamulano maanta waxa u baahannahay ama loo baahan yahay shidaalkan inaan u maamulano sida saxda ah ee loogu talagalay marka adiga muuqaalkan daawanayo fikirkaaga waa inoo muhiim maxay kula tahay ma laga yaabaa barnaamijkan soo saarista shidaalka Soomaaliya in uu yahay il dhaqaale ama horumar Soomaaliya u soo hoyatay ama ma laga yaabaa inay tahay caqabad Soomaaliya ee u sii talaabsanayso fikirkaaga waa noo muhiim kaliyaana muhiim nooma ahan wuxuu muhiim u yahay guud ahaan qof walba oo Soomaali ah meel alaala meesha uu dalka ka joogo haddii uu ahaa lahaa shacab haddii uu ahaa lahaa dowlad marka fikirkaaga noogu reeb xagga commentiga aad iyo aad aan mahadsantihiin muuqaalkeena maantana halkaas ayuu ku egyahay waxaa idin leeyahay kulanti dambe oo xiiso leh ciao